السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Maxamuud cashkan waxaynu ku baranaynaa 10 kan ereyo meesha noo saaran ereyga koowaad wind turbine waxa la yiraahdaa yani mashiimaha waaweyn ee inta badan magaalada banaankeeda laga dhiso sida muraaxad amal u sameeysan waa muraaxado aad u waaweyn adigu qaabka muraaxada u sameeysan tahay waxaana loogu talagalay inay energy iyo tamar soo saarto ayadoo isticmaalayso dabaysh yes waa wind oo dabaysh ah turbines oo bahlaasa u wareegana waxa jeclaan lahaa inaad sawirkooda raadisid si aad sawir guud uga heshid ereyga labaad alighted waa ka degitaan inta badan gawaarida ama vehicles qofka markuu gaari ka soo dago waxaan leenahay she alighted from the bus gaariga ka soo dagtay Ahmed alighted from the car and waved goodbye Ahmed gaariga ka soo dagay deena yani goodbye ayuu gacanta u haatay yes alighted marka waa ka soo dagitaan gawaari inta badan yes hadii shimbirta ay duuleysay ay soo dageysay ayadana waxaan leenahay the bird alighted on the branch shimbirtu waxay ku soo dagtay yani laanti marka alighted hadii inta badan waxa loo isticmaalo markii gawaari laga soo dagaayo shimbir hawada ku jirta iyadana soo dageyso alighted oo isticmaal kartaa ma mushkila ereyga saddexaad avalanche waa baraf ama dhagax baraf ka sameeysan oo aad u weyn okay markuu baraf aad u weyn yahay ayaa la yiraahdaa avalanche yes ereyga afraad charismatic waxa la yiraahdaa qof furfuran dabeecad wanaagsan leh dabeecad soo jiidasho leh yes mar walba uu dhoola cadeynaya uu furfuran yahay uu qoslaya qofkaas ayaa la yiraahdaa charismatic waxa kale oo dhigi kartaa charming yes everyone liked her because of her charismatic smile qof walba wuxuu ayada u jeclaa dhoola cadeynteeda soo jiidashada leh yes ereyga shanaad cons waa negative side waa yani wax walba waxay leeyihiin positive iyo negative positive waxa la yiraahdaa pros cons waxa la yiraahdaa yani negative kana waxa la yiraahdaa cons marka hadii uu dhahay positive and negative iyo hadii uu dhahay pros and cons ama advantage and disadvantage qaabkaas ayaa loo isticmaalaa yes for example every job has its pros and cons yani shaqo walba waxay leedahay faa'iidadeeda oo pros ah iyo cons oo khasaare ah yes ereyga lixaad craft waxa la yiraahdaa activity walba oo yani xiriir la leh in gacanta wax lagu sameeyo yani these activities that involved a skill in making things by hand yani qofka wax inuu gacanta ku sameeyo taas ayaa la yiraahdaa craft okay ereyga toddobaad dummy waa qof doqon ah yes somebody who is unintelligent somebody who is fool yes dummy waxa kaloo loo isticmaalaa bahalada mannequin-ka laho ee sanamka ah ee inta badan plastic ka samaysan ee dukaamada la dhigo dharkana lagu xayisiyo iyadana oo isticmaali karta laakiin ereygaas dummy inta badan waxa loo isticmaalaa fool qof doqon ah ereyga sideedaad elk waa nooc kamid ah deerada it's one of the species of deer yes deer xayawaanka la yiraahdo ama xayawaanka af Soomaaliga deerada la yiraahdo nooc kamid ah ayaa la yiraahdaa elk yes ereyga sagaalaad authentic waa something real something genuine yani wax original ah wax run ah aan fake ahayn yes for example the restaurant serves authentic Italian food maqaayadan waxay ibisaa cunno Italian ah oo original ah real ah yani aan fake ahayn yes ereyga tobanaad ee u dambeeyo blissful waa farxad wali farxada zaidka yes delighted oo farxada zaidka ama ecstatic oo farxada zaidka ay isku macno yihiin yes blissful simply waxa waayo extremely happy qof aad u faraxsan yes they enjoyed a blissful afternoon at the beach. Actually, intaas ayuu ka yahay keep learning and